Daawada soo dhawow. Muuqaalkeena maanta waxaan uga hadli doonaa dowladda Russia iyo sida ay ku noqotay maanta dal ka mid ah dowladaha ugu waaweyn adduunka markii loo fiiriyo xagga dhaqaale ahaan, military ahaan, hub ahaan iyo siyaasad ahaanba. Marka daawada isku day inaad subscribe noo saartid channelka oo aad gambaleelka u furatid si ay kuu soo gaaraan waxyaabo walba oo muhiim ah oo aan soo dhigno channelkeenan. Ruushka waxa uu noqday dal madax bannaan kadib markii uu burburay Midoogii Sofiyeet 1991. Ruushku waxa uu ka tirsanaa Midoogii Sofiyeet tan iyo markii uu la midoobay Midoogii Sofiyeet oo la aasaasay 31 Diseembar 1922 waxaana ku jiray ilaa burburkii 25 Diseembar 1991 waxaana ka tirsanaa 69 sano. Madaxweynihii ugu horreeyay ee dalka waxa uu ahaa Boris Yeltsin oo xilka qabtay 1 Janaayo 1992. Hadda Ruushka waxaa soo maray 3 madaxweyne oo uu 2 jeer xilka qabtay Vladimir Putin ilaa iyo haddana uu hayo. Vladimir Putin ayaa noqday madaxweynaha loogu cabsida badan yahay dunida haba ugu weynaado Mareykanka. Lacagta rasmiga ah ee waddanka waxaa lagu magacaabaa Russian Ruble. Ruushku waa waddanka ugu awood badan xagga nukleerka waxa uuna haystaa 6,000 oo nukleer. Waxa uu ku yaalaa bartamaha labada qaaradood ee ah Yurub iyo Aasiya. Ruushka waxaa ku nool 145 milyan oo qof. Dhaqaalaha Ruushka waxa uu ku tiirsan yahay soo saarista tamarta, warshadaha, agriculture-ga iyo adeegyada. Ruushka waxaa laga haystaa diimo fara badan sida Kiristaanka, Islaamka, Yahuudda iyo diimo kale. Ruushka badkiisa waxa uu ku fadhiyaa qiyaas dhan 17.1 milyan oo kiiloomitir laba jibaaran. Ruushku waxaa mara 3 badood: Arctic Ocean, Pacific Ocean iyo Atlantic Ocean. Ruushku waxa uu xuduud la leeyahay 16 dal oo ay ugu waaweyn yihiin Norway, China, South Korea iyo wadamo kale oo aad ka arki kartaan shaashadda idiin soo saarnay. Daawada muuqaalkeena intaas ayuu ku egyahay. Haddii aad jeclaan lahayd inaan soo badino taariikhaha wadamada noogu soo qor qaybta faallada ee commentiga. Hanaga hilmaamin subscribe inaad channelka noo saarto, like-na noo saar, noona sii share garee. Ugu dambeyn 10kiiba meeqa ayaad ku qiimeyn lahayd muuqaalkan? Waana mahadsantahay. Tan iyo muuqaal dambe, nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.